السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلام دمان walaalay Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan waa mar kale iyo walaashin Xafsa Shire ku soo dhawaada channelkayga hooyada maanta. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar, haddii aad hore noola joogtan aad u mahadsan tahay. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo doorka ay ku leeyihiin aabayaasha Soomaaliyeed qoyskooda ama familigooda iyo caruurtooda. Inta badan waxaa dhacdo cabashooyin badan oo social media ka aragno hooyo cabanayso markay imaato koriinka caruurta iyo aabayaasha qaabka doorka ay ka qaataan. Inta badan aabaha markino waxaa mas'uuliyad ay ka saaran tahay in familigiisa nafaqadooda uu kafaalo qaado. Nafaqada markii laga soo tago waxaa kaloo jira mas'uuliyad saaran aabaha oo waajib ay ku tahay inuu guto sida barbaarinta caruurta iyo inuu ka fakaro uu ilmaha baro diinta iyo dhaqanka wanaagsan si ay u noqdaan ubad wanaagsan oo hadhow asaga anfaco ayagana ay naftooda ay anfacaan. Marka inta badan waxaan aragnaa anaga waxaa lagu sii daayaa tarbiyada caruurta hooyooyinka kaliya lagu sii daayaa. Hooyada way iska daalan tahay oo maanta dhan hoole heesaa guriga inta wax ka qabasay u dhahayso. Marka qaar waxaa laga yaabaa jaanis inay caruurteeda aysan u helin. Marka aabaha waxaa laga rabaa asigana in hooyadii aabaha ay samaystaan waqti caruurta qofba waqtiga kale uu wax baro ama la ciyaaro ama waqti la qaato. Inta badan aabooyinka Soomaaliyeed waxa waaye ayaga waa laga cabsadaa oo aabaha ku sheega ama aabaha adi just wuxuu u taagan yahay in laga cabsado leh oo hadhow ama ku dilaa ama kugu qayliya oo laga dhudhuunto. Aabooyinkii hore waagi hore jiri jiray hadda inay jiraan ani kuley ma ogi, laakiin waageeni hore anaga aabayaasheena qaar ka mid waxay ahaa jireen aabayaal aad u kulkulul oo markii irid ay soo garaacaan laga kala cararo oo aaba imaanayo oo laga kala dhuunto. Laakiin saas khalad waaye. Aabaha in laga dhuunto ma ahan, waxaa sax ah in aabaha markuu iridda imaado caruurta ay soo dhaweeyaan. Taasna waxaa keeni karto aabaha inuu yahay aaba naxariis badan, kalgacayl badan, caruurtiisa ay u hiloobaan inta uu shaqada ku maqan yahay. Marka iridda uu saas ugu soo galnay u soo kala cararaan, laakiin bilcaks ay ahaa jirto waagi horeeto oo aabaha waa laga cabsan jiray ilaa kuwa Ilaahay u naxariista maahane. Marka ilmaha markaa ka maqan tahay maanta shaqada aad jirtid galabta markaa u imaanaysa waxaa la rabaa inaa wax u keentid ama waxyaaba ay jecel yihiin ilmaha macmacaanka ay jecel yihiin. Haddii aad wax u keenaynin xataa at least markaa imaatid oo saacada ugu horeysa refreshment qaadatid oo nasatid inuu ilmahaga waqti aad siisid si ay kuu bartaan ilmo waxaa jiro aabo magaca aabo bas ka haystaan laakiin aabooda aan aqoonin dabeecadiisa aqoonin just way ka cabsadaan way ka ordaan aaba imaaday hayay kala ordale ay tahay. Laakiin xaqiiqda saas wax fiican maahan. Aabaha wuxuu mudan yahay inuu ilmihiisa waqti la qaato la ciyaaro wiilashiisa gabdhihiisa banooni la ciyaaro wareesto maanta uu yiraahdo haye iskuulki maxaa ku soo barateen dugsiga quraanka intee ku soo barateen habeenkii xataa jaanis haduu heli karo hooyadii maanta in ayada la joogtay ilmahan dhexda ugu jirtay inuu asiga quraanka u akhriyo casharada ugu celiyo haduu yahay aaba wax bartay oo quraanka definitely boqolkiiba 99 Soomaalida quraanka waa la baraa intay yarihiin baadiyo iyo magaalada qofka jooga quraanka inta badan horta wiilashan waa la baraa baadiyaha xataa wiilash kaliya la baraa. Marka anima ila ahan aaba quraan aqoonin inuu jiro oo Soomaaliyeed marka ciyaalka in quraanka oo loo meeriyo ee baraan waqti la qaataan waqti siiyaan oona laga xanibin. Waxaa kaloo jiro dhinaca hooyooyinka qaar ee ayakane ilmaha ay ka xanibaan aabahooda ee jaanis ay siin aabaha wuu daalan yahay ka tag shib ka dheh asagaba wuu dhala maxaa waa inuu ilmaha qayladooda inuu arko waaye. Qaylo xad dhaaf ma ahan laakiin at least ilmaha jaanis inuu siiyo waqti la qaato waaye. Laakiin mar walba hadaad tiraahdo aabihin wuu daalan yahay ka taga ilmihii aad waqti aabood la siin goormee baranayaan aabahooda goormee waqti la qaadanayaan. Marka waxaa waaye ilmaha iyo aabahooda inayna hooyooyinka aysa kala dhexgelin ee istusiyaan ee isbartaan haddii odayga uu aad u daalan yahay sax waaye marka qaar fursad uu ku nasto waa la siiyaa laakiin haduusan daalanayn inuu jaanis la siiyo ilmaha iyo aabaha ay waqti isla qaataan ee tababaraan u sheekeeyaan qisooyin uga sheekeeyaan
waalidnimada wanaagsan taas waaye. Marka aabooyinka Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa oo dhalinyarada oo hadirta ilmaha soo koraya jiilka cusub korinayo inay ilmahooda waqti siiyaan, banaanka u kaxeeyaan xataa maxaa la lahayay meelaha loo dalxiis tago Soomaaliya anaga hadda joognaa aabooyinka Soomaaliya joogaan inay u wadaan marmarka qaar hadduu fursad ay heli karaan. maxaa la lahayay haddii xataa iska jaab yar tahay oo mar walba cunugaaga meel aad gey karin inaad ku tashatid oo maxaa la lahayay lacag yar marba u save gareysid oo meel u dhigtid ilmahaaga si maalin aa u wadi kartid. meelo waxaa jira xataa lacag kaaga baahneen sida badda camal inaa wadid ilmaha maalinta Jimcada ama maalin kaleeto firaaqada aad leedahay waqti siisid. marka dhammaan waxaan ku baraarujinayaa wiilasha Soomaaliyeed dhalinyarada oo hadda aabooyinka inay ilmahooda waqti siiyaan la baashaalaan oo aadan noqonin sida aabayaashii hore oo qalafsanayo aad adeeg ahaayeen. inkastoo wallahi ay jiraan maasha Allah aabooyin naxariis badan oo ilmaha waqti la qaadan jiro oo la baashaali jiray haddana inta badan waxay u badnaayeen kuwa adag oo yacni laga cabsado. marka insha Allah ku dadaalno ilmaheena si caqliga uga koraan waa in waqti la siiyaa. cunuga kaliya uma baahno cunto maxaa la lahayay dhar uma baahno, wuxuu u baahan yahay garaadka inuu ka koro, inuu kula sheekaysto. qof weyn markuu la hadlo cunuga wuxuu noqonayaa cunug caqli badan. laakiin hadhow haddii ciyaalnimada lagu haayo la dhaho waryaa ilmaha tahay naga aamus, waryaa ilmaha tahay inta ka bax, waryaasaan hayeelin every time cunuga la xadido oo sajaanis loo siinin inuu ku ciyaaro ama waalidkiisa waqti la qaato cunugaas caqligiisa completely kaamil ma naqanayo. marka waxaa fiican ilmaha inuu caqliga laga koriyo, waqti la siiyo, la baashaal siiyo, lala hadlo, casharadooda loogu celiyo. haddii casharka iskuulka aad ugu celi karin xataa macallin aa u raadisid maxaa la ugu celceliyo. iskuulka aad tagtid macallimiinta la socotid macallinkooda quraanka aad baratid. aabaha markina waxaa laga yaabaa inuusan aqoonin xataa cunugiisa macallimiinta u dhigo. hooyada iskuulka geysay ayada le ka warheyso, ayada le lacagta tuureyso, aabihii ma ka warhaayo. waxaa waajib ah inaa iskuulka aad tagtid cunugaaga xaaladiisa aad la socotid. hadda waxaa lagu jiraa zaman fitna badan, ilmaha dhalinyarada teenagerska ayaanta aaday u haleysan yihiin. social media dadku uu haleeyay ilmihii yariiska xataa telefoonka ma laga celin karo. marka cunuga haddii loo sheekeeyo waqti lala qaato telefoon xataa jaanis uu ku tabo ma helaayo, ma fahanteen. laakiin haddii la kala aamusan yahay qof walbaba inta telefoon la jeesto cunuga asagana wuu rabaa. aabaha markuu guriga imaado hadduu telefoon la jeesto, hooyadii telefoon la jeesato, ilmihii kaligood dhexda ay kusoo dhumayaan maahano. marka ilmaha in waqti la siiyo, telefoonka meel la dhigo, shaqo meel la dhigo, ciyaalka waqti la siiyo si hadhow ay kuwa xasuustaan ilmahaaga. haddii aad ka baxdid xataa anaga dhan waa wada dhimanaynaa, qof walba qadarta maalin u imaanaysaa. marka maalinta aad dhimatay ilmahaaga inay wax wanaagsan kugu xasuustaan waa inaa xooga aad saartid oo aabahay qof fiican u ahaa ee mar walbana kuu duceeyaan. qofka fiican mar walba niyaddaa looga duceeyaa. ilmaha adiga aa dhashay haddii si fiican u wanaaji weyso oo mar walba dil iyo xumaan le aa la daba taagan tahay waa dhala keliya darteed aana sas ugu ciqaabaysid hadhow niyadday kaa habaarayaan. xaqiiqna waay taas because qof rabo in la ciqaabo ma jiro. adiga weyn ma jecli in lagu ciqaabo. marka ilmaha ciqaabta laga daayo, dilka laga daayo, naxariista iyo jaceylka loo badiyo, aabooyinkan waqtigooda ee ilmaha ay siistaan. marka aabo walbo oo i dhageysanayo waxaan ku baraarujinayaa in uu maxaa la lahayay ilmihiisa waqti siiyo, la baashaalo, maxaa la lahayay oo hooyo kaliya uusan ku daynin. hooyooyinka aaday u dadaalaan wallahi oo Soomaalida maasha Allah ilaahay garabkooda ha galo. yacni wax walba aydaa isku qabanayso. aabaha waxaa laga yaabaa kaliya suuqaas inuu kasoo shaqeeyo oo lacag kaliya oo keeno oo wax kale reerkaas uusan ku darsanin, oo hooyada kaliya wax walba tarbiyo ha ahaato, korinsho ha ahaato, wax meel gees ha ahaato, wax walba iyada lagu sii daayo. marka taasna xaq ma ahan. hooyooyinka hala caawiyo, ilmaha hala koriyo, ilmaha akhlaaqdooda hala ogaado. marka waa mahadsantihiin. waxaan rajeynayaa in awaanadeeda qaadan doontiin insha Allah. waxaan rajeynayaa insha Allah inaad la wadaagi doontiin asxaabtiina dhammaan. please channelkayga haddii oo maxaa la lahayay maanta idinku horeyso idin soo gaaray asxaabtiina la wadaaga, gaarsiiya dhammaan aabayaasha Soomaaliyeed. maxaa la lahayay aad u mahadsantihiin. jazaakumullahu khayr. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.